إنا لله وإنا إليه راجعون. marka insha Allah inaan marka dhaawac moodeynay inaan baawar saarnaa damacnay haddana marka baash u guuleeyay marka doctor-sada waxaan Ilaahay u rajaynaynaa inuu Ilaahay jannada u geeyo kasiisi ahaan aad ayaan uga naxay geerida naxdinta lahayd ee ku timaaday walaashay Yusra waxay ahayd mid kamid ah dadka aan saaxiibada dhow ahayn waxayna ahayd inta aan ka aqaanay gabar furfuran oo dabeecad wanaagsan walaalkayga muslimka ahow muuqaalkan like saar oo sii share garay qaybta hoose ee commentigana saaxiibada halkan ku jira dhammaantood waxaan ka codsanayaa in ay tacsida iyo tiraanyada ay kula qaybsadaan eheladii iyo Soomaali weyntii ay ka baxday marxuumad Yusra Cabdullaahi Axmed oo gacantii ilaalin lahayd maanta ku dishay magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud. Yusra Cabdullaahi Axmed waxa ay kamid ahayd dhalinyarada wax ka baratay magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud. Sanadkii tagay ayay dhamaysay heerka koobaad ee jaamacadda waxayna ka baxday mid kamid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Guriceel. Yusra waxa ku tiirsanaa dhammaan eheladeeda iyo qoyskeeda waana sababta ay shaqo u bilowday 3 sano ka hor. waa gabar firfircoon waxa ayna lahayd hal abuur haatanse waxa ay ka shaqaynaysay isbitaalka Starlin ee magaalada Guriceel. Yusra Cabdullaahi Axmed waxa ay dunida kaga tagtay hal wiil oo ay hooyo u ahayd maanta iyada oo ka soo baxday goobteeda shaqo xilli ay u adkaysan weeday xabadaha ka dhacay magaalada Guriceel oo ay isku adeegsanayeen ciidamada gorgor iyo kuwa booliska oo magaalada ku dagaalamay ayay u soo jihaysatay guri ay degneed saaxiibadeed taasina waxa ay keentay in ay Yusra ku geeriyootay halkan idin muuqata ganjeelkan haatan idin muuqda waxa ku yaala xabadii ku dhacday Yusra Cabdullaahi Axmed oo ahayd gabar dhakhtarada ah magaaladana si weyn looga yaqaanay waxa la sheegay in halkan ay maskaxdeeda ku firdhatay Cabdinaasir waxa uu kamid yahay dadkii halkan ku sugnaa waxa uu iiga sheekeeyay sida ay wax u dhaceen iyo sida ay gabadha ku dhimatay gabadha meeshii ku geeriyootay in la wana rajacuun marka anako meeshii anako joogna xabad oo weeftaha ku dhacday dhinaca sare ugu dhacday Ilaahay wuxuu baryana inuu qabto u waasiyo ugu baryana may akida taagna meesha ka dhawaa way guriga galisay waa xabada haleesha marka xabad oo weefta oo soo dhacday madax ka حبدا سعر سعودي كبعد حبدا وفتاء ما دعسر ورعدي مركا إن شاء الله أنا مركا داوع موديني أنا باور صارنا دمعني هذا مركا بس وقولي مركا دكتور سوى وحن إلى ورجينا إنه إلى كنا الجيو حبدا وفتاء ورعدي قف دقن قف عن هاد قف ولي بيسافر شغال هاد بتشابك سوقنا كبير كبر أد وحد المتعلم هاد مدرسين هاد ما شاء الله هذا إلى ورجينا إنه قف خبر إلى واسع قبل أن تسأل كي تكتبه وهروس هذا ممكن تمد ماشي حبدا ورعدي الباب كان سيجلس والله ما دقيقة حبدا بكي عبارة سعودي إذا حبدا سعودي أبنك باش لا يقاضوا إلى السمر إيمان الله كسيه إن الله أنت كتبتي أنا كده أنا بحضي ولا شيء دكتور السلام إلهي خبري أنا كمان إلهي هؤلاء حريستي يسرع عبد الله أحمد ayaa si weyn looga yaqaanay magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud baraha bulshada waxa si weyn u hareeyay sawiradeeda iyo muuqaaladeeda oo ay dhammaan dadka uga tacsiyeynayeen geeridii naxdinta lahayd ee ku timaaday ugu dambeyn inaguna waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto walaashan Yusra Cabdullaahi Axmed jannatul firdawsa Allah ka waraabiyo qabrigeedana Allah u waasiciyo walaalkayga muslimka ahow waxaan si sharaf ku jirto kaaga codsanayaa in aad ducada aad la qaybsato marxuumad Yusra Cabdullaahi Axmed oo maanta ku geeriyootay magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud israsaasayntii dhex martay ciidamada gorgor iyo kuwa booliska